soo dhawaada saaxiibayaal mar kale filimka Bilaagiis waxaa nolo sheegay in dhammaan dunida ay ajnabi ay qabsadeen. Ajnabiga ma doonayaan inay burburiyo adduunka, laakiin waxay rabaan inay halkan ku noolaadaan. Waxay rabaan inay kheyraadka adduunka ka faa'iideystaan. Haddii bini'aadamku uusan doonin inuu baaba'o, waxa ku qasab inay haddana noolaadaan ajnabigu iyo inay ka shaqeeyaan xeerkooda si haddii loo dhigo. Hadda adina waxay noqdeen addoomaha ajnabiga. Ajnabigu waxaa loogu yeeraa legislature adduunka. Waxay ka faa'iideystaan kheyraadka dhulka iyagoo dadku adeegsanaya si ay u dhistaan meelaha ay ku noolaadaan. Meelaha dhulka hoostiisa waxaa loo yaqaanaa closed zones, halkaasna ma keli karaan cid aan ka ajnabiga saraakiisha dowladda. Ajnabigu waxay dadka qoorta ugu xireen qalab raadraac si ula socdo dhaqdhaqaaq kasta oo ay sameynayaan. Qalabkaas wuxuu keydinayaa dhammaan xogta qofka ay ku jiraan, macluumaadka iyo taariikhda dambiga uu galay. Dunida cusub gudaheeda xitaa saraakiisha dowladda waxay hoos yimaadaan ajnabiga, laakiin weli waxaa jira koox rabta inay la dagaalamaan ajnabiga. Kooxdan waxay rabaan inay bilaabaan dagaal si dad kale badan ugu dhiiran una kacaan sidii ugu saar lahayn ajnabiga adduunka. Kooxdan waxaa la yiraahdaa Phineas, hogaamiyahooduna waa Reef. Wuxuu diyaariyay qorshe lagu burburinayo saldhigga ajnabiga, wuxuuna la kaashay dad badan, laakiin nasiib darro qorshuhu ma guuleysan. Ajnabiga ma burburiyay, wuxuu ku dhintay howlgalkaas. Hadda waxaana la soo bandhigay Gabriel kaasoo walaalka Reef. Markii Reef uu dhintay kadib, Gabriel wuxuu ka shaqeynayay xarunta soo celinta data recovery center. Taas waxaa muuqata in muuqaalkiisa beddelay iyadoo la tusay William askari boolis ah, isna wuxuu ka shaqeeyaa ajnabiga maanta isagoo akhrinaya wargeyska. Wuxuu arkay xayeysiin Phineas ee daabacday, wuxuuna garwaaqsan xayeysiinta Fraser oo kasoo jeeda kooxda. Taasi micnaheedu in kooxdii hore ee Phineas aysan dhammaantood dhimin. Waxaa nool qaar ka mid ah kacdoonayaasha kuwaas oo weli qorsheynaya inay la dagaallamaan ajnabiga. Waxaa sidoo kale soo baxay in William waa saaxiibka Abba Reef iyo Gabriel. Wuxuu mar walba la kulmi jiray Gabriel, wuxuuna ka shakiyay in Gabriel xiriir hoose la leeyahay kooxdii walaalkiisii. Wuxuuna aaminsan in Gabriel ku xiri karo xogta kooxdaas uu u gudbin karo William si howlgalka ajnabiga looga caawiyo, taasoo suurtagal ka dhigaysa in William darajo sare loo dilacsiiyo. Laakiin Gabriel weligii xiriir lama uusan yeelan kooxda walaalkiisii, mana doonayo inuu la yeesho. Wuxuuna rabaa nolol degan oo caadi ah, xitaa ma doonayo in William uu ka caawiyo xiriir kooxdaas. Kadib kulankii William wuxuu la kulmay saaxiibtiisii Jaina. Waxay xiriir la dhammaan saraakiisha dowladda, wuxuuna ka helay xog muhiim ah. Kadibna wuxuu ku soo laabtay xafiiskiisii, wuxuuna wadaagay saraakiisha kale inuu rumaysan in kooxda Phineas ay weli firfircoon tahay. Wuxuuna sheegay in uu diyaar garoobayo howlgal qarsoon, wuxuuna hayaa cadeymo muujinaya arrintaas. Ujeedadiisa kaliya waxay inuu ka hortago weerarka argagixisada ee soo socda. Hadalkiisii wax run ah ku jira sababta waxaana la tusay in kooxda Phineas ay dhab ahaantii qarsoodi u qorsheynayeen howlgal, waxayna damacsiinayeen sidii uu jir u fuliyaan howlgalkaas. Wuxuu bilaabay sahar Reef wuxuu dhiirnaanta howlgalkaas oo ka helay biis oo geesiha. Waxaana la tusay in sanadkii 2019 shisheeyuhu ku dhawaaqay marshal law kaasoo xukun ciidan. Inkastoo Abba Reef sarkaal boolis dana ma qaban inuu shisheeyo u noqdo addoon, sidaas darteed wuxuu isku dayay inuu magaalada ka baxo si qarsoodi ku carro meesha. Laakiin markuu maray tunnelka godka dhulka hoostiisa, shisheeye ayaa xiray tunnelkii Reef. aabihiisii hooyadiisii labadeedu waa la dilay. taas ayaa keentay in Reef walaalkiisii Gabriel ay kaligood noqdaan. Marka filimku wuxuu ku soo laabanayaa waqtiga hadda la joogo sanadka 2027. William markii la kulmay Gabriel wuxuuna ka codsaday inuu ka caawiyo sidii xog uga heli kooxda kacdoonka, wuxuuna u ballanqaaday hadduu ka caawiyo inuu siin doono nolol ammaan ah. Laakiin Gabriel markii lagu diiday codsigiisii, markaas William wuxuu qortay Gabriel ugu xiray qalab raadraac maadaama uu sheegay in Gabriel weli xiriir hoose la leeyahay kooxda kacdoonka. Gabriel waxaana la tusay isagoo ka shaqeynaya xafiiska xog ururinta, halkaas oo dadka xogta ugu diyaarinaya ajnabiga. Xafiiskaas wuxuu ahaa keedka xogeed, halkaas ayuu ku arkay mid ka mid ah shaqaale ay si qarsoodi ugu qortay xog muhiim ah warqad yar. Inkastoo uu ogaa in kaamirada laga arkay dalsi xeelaysan xogtaas u qortay, kadibna warqadaas ayuu Gabriel siiyay xogtaas uu gudbiyay kooxda Phineas. Markii Gabriel la kulmay mid ka mid ah xubnaha Phineas, ninkaas wuxuu si dhaqso ah Gabriel lagu xiray qalab gaar ah kaasoo burburinaya ama qaldanaya nidaamka raadraaca, wuxuuna u sameeyay in koodka Gabriel uu jiro si khaldan loo muujiyo. kadibna Gabriel wuxuu geeyay goob sir ah, halkaas ayuu Gabriel si lama filaan walaalkiisii Reef oo nool. Inkastoo horna la sheegay in la dilay, taasoo ka dhigay in dilkii Reef waa khiyaano. Reef wuxuu si qarsoodi isku dhaqay kadib howlgalkiisii markuu fashilmay, wuxuuna qoortiisii ka saaray jeebkii raadraaca si aan loo gaarsiinin. wuxuuna weli qorsheynayay in ajnabiga laga takhaluso. Reef wuxuu Gabriel ka qaaday xogtii, wuxuuna siiyay lacago, wuxuuna ku amray magaalo ka tagso haddii howlgalku uu guuleysto. Dadku waxay ogaanayeen Gabriel uu la shaqeynayo kooxda Phineas, taasina waxay keeni kartaa in la xiro
Reef arintaas maraba inuu lakiisii la kulmo Gabriel isna uu aqbal inuu magaalada ka tago Venus waxay xalay xog muujinaysaa in xaflad cusub askartii madaxda loo qabanayo halkaas oo ajnabiga naftiisa ka soo qayb galayo waxayna qorsheynayaan halkaas uu filay howlgalka qaraxa kaliya dadka la cusub markaas kaliya dadka aan loo qolnoomo galin galaan taasi caqabad weyn sidee bay ku gali karaan gudaha caqabada la waxay sidee u heli karaan koonta u joogo duq magaalada Gabriel si qorshoodu u sii furaa sirta passwordka si loo helo sidoo kale waxay u baahnayeen ban aan laga dareemin aaladaha sirdoonka shisheeya mashiinada kale siyaasiyahankoodii ay u sameeyay banka noocaas ah banka waxaa laga sameeyay waxyaalo organic wax bar lah laguma darin taasi waxay ka dhigtay mid aan la dareemin marka la marsiiyo bar dareemayaasha markii la tababarku wuxuu noqday mid aan la arkin laakiin hadii laba jeer la taabto wuxuu sameeyay qarax weyn maalintii rasmiga mudaharaadka ayaa timid maalinta ka hor mudaharaadka dhammaan xubnaha kacdoonka waxay la kaashadeen takhtar si looga saaro qalabka raacay qoortooda inkastoo tan qatar waxay u baraareen si u gaar leh ujeedadooda inkastoo qalabka raacay shisheeyo iska saareen haddana waxay u baahan qalabka loo isticmaalaan si gudaha u galaan waxay u baahneen qalabka raacay dadka la casuum laakiin hadda dadka dhintay waxay qalabkii ka saareen midkaas kuna xiran ilka gudahoodii waxayna sidoo kale ku qorsanayeen koodisan suudiyam ah si hadii loo qabto isu dil intii sarta bixin iyagoo isticmaalaya qalabka raacay beenta waxay suurta gashay inay gaaraan garoonkii laakiin hadda waxay la kulmeen caqabado dheeraad si u fuliyaan howlgalka kooxda Venus waxay galeen xaalad adag laakiin wasiirkiisa ugu dambeeyay waxay bambayeen garoonkii waxayna dileen ajnabiga duq magaalada howlgalkoodii xig waxay insi badbaado u dhuntaan shisheeyaashu weerarad waxayna bilaabeen gaarsiyaal kamid meerahooda si ay u qabtaan ku weerarkismay qalabkii lagu gal garoonka ayaa la tuuray waxa ku adkay in raadkoodii laakiin dawladdu waxay cadays xoogan ka heshay ajnabiga si loo helo kooxda Venus oo loo arkagixiso waxayna bilaabeen isticmaalka tiknoolajiyada aqoonsiga wajiga iyagoo fiiran sawirro si isku jiraan qorshaha kooxda Venus waxay in kala magaalada ka saaro isigoo wata baabuur laakiin ninkii damceen ka sameeyay wuxuu yiri hal mar la xaskiisii koor intuusan dhuuman sababta markuu dhinto xiriirda ma jiri doono laakiin wajigiisii hore ayaa la qabtay waxaan la xaqiijin ka tirsan argagixisada booliska oo tagay gurigiisii si ay u xiran u baaraan markuu wac booliskii ayaa wac qaybta xaskiisii gabadhiisii waa la afduubay waxayna si ugu soo baar lahayn kooxda kale la socda markii ninkii kooxda Venus waqtigii balanti man waayay waxayna kooxda isticmaaleen qorshe labada dhexeyn gaashin si gaar uga baxaan magaalada waxayna u inay raacaan bas aan lagu raadraaci karin laakiin sababta ninkii khiyaanada gala boolisku waxay kooxda ku qabteen bartamaha safarkooda si sheeyay dhaqsiga baska u galeen waxayna markii bedelin gabadhii u horeysay kooxda ka tirsaneed qaar intay sarqamaan Maxamed laba dhexeyn cunaysiin ka isku dilaan Reef kula ka baraysan uu dil rabay laakiin William qata koor intuu san tacaawin William uu san shisheeyaasha Reef balas wuxuu isticmaalay ka cadaadii Gabriel wuxuuna Gabriel u sheegay in gacan walaalka wandili doona wax kali oo in Gabriel uu ka caawiyo in la qabto madaxda kooxda Venus Gabriel wuxuu la xiriir kooxda iska dhigay inuu haysto xog muhiim ah markii isweydiiyay xogta wuxuu yiri waxaan xogtan siisan doonaa madaxda ah Gabriel wuxuu isku ogaanay ciidanka Mr. Mandiga markii uu gurigeedii waxa soo baxay in Mr. Mandiga uu saaxiibtii ugu dhibay William gurigeedii ay film ku bilaabay markii hore markuu Gabriel guriga u tagay gabadha waxay isla markiiba ugu caalamay magaciisii taasoo muujinaysa in uu u taqaan Gabriel uu yaabay wuxuu ogaa in saaxiib la dhaabisi koor intaysan wax badan sheegin William booliska dabaraaco guriga Jimmy William wuxuu markiiba toogtay saaxiibtiisii hore markaas kadib guriga ayaa la baar waxaana qalab badan oo raaciyo doobis ah waxayna ogaan in guriga iman jiray saraakiisha sharci dawladda dadkaas waxay xiriir lahayn shisheeyaasha markasta shisheeyaasha la hadlaan xogta guriga lagu dibi jiray waxayna tan oogsan si ay u hortagaan shisheeyaasha mid kamid saraakiisha waa taliyaha booliska wuxuu xogta mudaharaadka u gudbiyay habeenada laakiin moogay hal isku inay fashilmay ama la dilo sababta qalkaas taliyaha booliska qadiisii waa laga eriyay waxaan kaloo xiray isna wuxuu galay xabsi meesha William wuxuu lagu amaray shaqadiisii fiicnaa waxaa loo diray taliyaha booliska ay ugu fiican Reef iyo taliyaha booliska waxaa loo diray meerashayaasha ilga luuqa gacmoodkoodii Gabriel aad murugooday William koor intuusan u farshayaasha ayuu booqday Gabriel soo macsalaameeyo Gabriel uu murugeysana wuxuu yiri mashiin kulaalkii markii lagu gol daraystay William ugu waxa laga yeelan kooda qaybkeed qorshaha siyaasi la wuxuu siiyay Gabriel jim muhiim ah halkaas soo baxay tiis weyn William matiisi wuxuu qayb ka howlgalka qarsoon fiidiyoga William siin Gabriel wuxuu mid isigu ku jiro isigoo la sawir hooyadiisii Gabriel fiidiyoga wuxuu xilgii Gabriel oo jira waxa fiidiyo ku jira William bis iyo saaxiibadiis oo dhammaan dadka ayaa si wajir u asaasay kooxda Venus aabaa Gabriel wuxuu qayb ka kooxdan koona muddo in uu shaqeeyo muddo noqdan shisheeyaasha taasi waxay sababtay in sameeyaan qorshahan weyn ee qarsoon dhamaadkii fiidiyoga waxa Gabriel lagu dhaxay adigoo in si wada dagaalka dadkan waa inay ku dhiirigelisay in xorriyadoodii u istaagaan markaas filimku wuxuu dib ugu laabanay waqti ka dil joogo kulaatay dabada William wuxuu gulgudaa meerashiyaasha u dir warbixinta ugu horeysay laakiin jirkiisu dhan waxa ku fiisan dareeran aan arkin taasi waxay muujinaysaa qorsho in lagu gol dareysto howlgalka in William dalcay kadib loo dir ku daa deegaanka shisheeyaasha si halkaas dhamaan shisheeyo ugu burburiyo qaraxa markaas ay soo baxatay iskale ninka madaxa ka ah howlgalka oo dhan Mr. Mandiga wuxuu William naftiisa
filimkiisii intiisii badan waxaana loo muujinay in William ka soo horjeedo kooxda Phineas laakiin waxa xaqiiqada kaliya gabadhii la dilay Jenna markii William gulxbanaan gaarka deegaan shisheeyaasha qarax halkaas dhac deegaanka oo dhan waa la burburiyay kadib burburka shisheeyaasha cabsi baa sababtoo ah kooxda Phineas oo kaliya dunida oo dhan ayaa koox yar oo mucaarad ka soo baxay dhammaan waxay bilaan dagaalo yar oo kula jiraan shisheeyaasha dadkii caadiga waxay bilaan dib loo soo noqdeen xaqooda filimku wuxuu ku dhamaanay isagoo la tusay dadka dib bilaan kacdoon daba si ugu guuleystaan shisheeyaha hadii halkaan nala soo gaartay aad baa umaasan tahay waxaan ka codsanay jalaag subscribe ku ahayn haduu adeeg subscribe ku waxaan ka codsanay muuqaalka lana soo si meel gaaro aad baa umaasan tahay